asxaabta waxa ugu badan ay soo weydiiyaan maalmahan ciwaan sidee ku helaa warniyo ciwaan meel ku sheeg waa waxa ugu badan ay taagan maalmahan hadaba ciwaanka aad dooranayso inuu cad yahay waxay keenaysaa in daraasadaadana la fahmo marka waa inaad si qoto dheer uga fakartaa waxa aad rabto inaad baarto oo ay daraasadaada ku saabsanaa doonto ciwaanka marka uu qoran yahay eray walba oo kamid ah macna ayaa ugu jira meesha hadaba si aad u hesho ciwaan shidan inaad martaa stepka koowaad waa inaad doorataa area fildigaaga kamid ah oo aad xiisayso tusaale haddii aad barato dhaqaalaha wuxuu ka hadlaa ciwaano badan dooranaysaa inaad ka hadasho qaybta unemploymentiga markaas waxaad dooratay area kamid ah fildigaaga stepka labaad areadii aad dooratay inaad ka sheegto specific problem gaar ah oo ka jira areadaas problemkaasina waa inuu yahay mid jira oona la baari karo tusaale waxaad leedahay specific problemkayga waxaa jira shaqo la'aan tiro badan high unemployment rate stepka saddexaad waxaad tixaysaa waxyaabaha sababa problemka aad soo xustay oo waxaad leedahay waxyaabaha sababa shaqo la'aanta waxaa kamid ah kow inaad tixida markaas waxyaabaha sababa tusaale shaqooyinka available-ka oo iska yar tayada waxbarashada lack of good system and lack of manufacturing and industries marka waxaad tixday waxyaabaha sababa problemka stepka afraad waxaad samaynaysaa waxyaabaha sababa problemka aad soo sheegtay ayaa waxaa ka dooranaysaa mid ama labo sababtoo ah waxyaabaha sababa problemka oo dhan ma wada baari kartid oo daraasada waqtigeeda ma saamaxaya saa darteed waa inaad mid ama laba ka doorataa courseski aan soo tirina waxaa ka doortay aad leedahay low quality of education stepka shanaad waxaad samaynaysaa courseski aan soo dooranay iyo problemka ayaa isku xiraynaa oo waxaan leenahay courseski oo ahaa low quality of education iyo problemkii oo ahaa high unemployment rate ayaan isku xiraynaa oo hal statementi ayaa ka dhignay stepka lixaad statementiga aan hadda dhisna ayaa waxaan ka saaraynaa ereyada negative-ka ah tusaale low quality of education tayada waxbarashada oo liidata haddiiba aan ognahay inay liidato maba loo baahna in daraasadaan la sameeyo saa darteed ereyga low ka saaraynaa sidoo kale high unemployment rate shaqo la'aan tiro badan ay jirto aan ognahay ma u baahna in la baaro marka ereyga highna waa ka saaraynaa oo ma aha inaan ka hor dhacno jawaabta laga rabo in la helo marka daraasada la sameeyo kadib stepka toddobaad waxaa habeynaysaa statementiga adigoo ku daraya unit of analyze and context locationka daraasada ay ku saabsan tahay iyo dadka ama elementiska ay ku saabsan tahay oo hadda waxaan leenahay quality of education and youth unemployment rate in Muqdisho unit of analyze keena waxa waaye youth unemployment sidoo kale locationka daraasada meeshu ku cadiya stepka sideedaad waxaa samaynaysaa evaluate your title inaad qiimeyso title-ka aan soo dhisnay oo aad ogaato yaa independent variable ku ah yaana dependent variable ku ah hadda independent variable keena waxa waaye quality of education dependent variable keena waxa waaye youth unemployment rate stepka ugu dambeeya sagaalaad waxaa samaynaysaa inaan qeexno variableska oo IV-ga iyo DV-ga sida quality of education iyo unemployment rate intaan waxa waaye sagaalka step ay tahay inaad marto marka aad samaynayso ciwaan kala kacsan